Kaalinta ay Somalidu ka gashay qaxootiga iska dhiibay dalkan Jarmalka. Halkani waa deefsame iyo anigoo Ahmed Xasan. Dowladda waddanka Jarmalka ayaa sheegtay in ay martigelisay qaxootigii ugu badnaa ebid oo gaaraya milyan iyo dheeraad oo qof oo qaxooti ah. Dowladda ayaa sheegtay in 27,000 oo ruux oo dadkaas ka mid ay yihiin dad aan dal lahayn. In ka badan 244,000 oo qof ayaa waddanka Jarmalka ka codsaday magangelyo sanadkii la soo dhaafay, halka in ka badan 1 milyan oo qaxooti Ukraine u dhashayna ay soo gaareen dalka iyaga oo ka soo cararay dagaalka ka socda waddankooda. Sidaas waxaa sheegay dowladda Jarmalka. Waddanka ugu horeeya ee dadkiisu iska dhiibeen Jarmalka ayaa Syria, waxaa soo raaca Afghanistan, Turkiya iyo Iraq. Balse qaxootiga yimid marka la barbardhigo sanadkii 2020 tirada magangelyo doonka ayaa korotay 30%. Gaar ahaan 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2020 tirada ayaa korortay, iyada oo dadka magangelyo doonka ay ka soo qulqulayeen dhinaca waddamada la isku yidhaahdo Balkanka. Somalidu kaalintee ayay kaga jirtaa dadka iska dhiibay waddankan Jarmalka? Soomaalida ayaa ku jirta kaalinta afraad ee magangelyo doonka ka yimid Afrika ee iska dhiibay Jarmalka. Waxaa ka horeeya waddamada kale Morocco oo 95,000 oo ruux ay ka yimaadeen, Nigeria oo 83,000 oo qof ay ka yimaadeen, iyo Eritrea oo 50,000 oo qof in ka badan ay ka yimaadeen. Tirada Soomaalida ee magangelyo doonka ayaa sanadkan ku dhawaatay 2 jibaar. 54,470 ruux ayaa lagu sheegay dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Jarmalka ee ay doonayso in la qaabilo, sida ay baahisay dowladda Jarmalka. 31,000 oo ka mid dadkaas ayaa sharciyo ka helay Jarmalka, balse intooda badan weli ma aysan helin sharciga joogtada ee dalkan, halka 5,000 ku dhawaad ka mid ay heleen diidmo. Micnaheeduna yahay in dowladda Jarmalku qaabili doonin magangelyana siin doonin. Tan ayaa micnaheedu yahay in 10kii qof ee Soomaali sideed ka mid ay sharci ka haystaan dowladda. Marka loo eego waddamada dunida, Soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta 10aad. Waddamada liiska ugu horeeya ayaa waxaa ka mid Turkiga oo ku jira kaalinta 5aad. Soomaalida waddankan soo gashay intooda badan ma ahan dad la keenay ee waa dad lugtooda ku yimid ama sharci darro ku soo galay. In la qaabilo waxay keenaysaa in qofku uu xuquuq ka helo dalka. Faa'iido kale ayuu ku sheegay in ay tahay in Jarmalku yahay dal u furfuran qaabilaadda Soomaalida mar loo eego waddamada kale ee Yurub. Dowladda Jarmalka iyo 16 waddan oo kale oo horaan isugu raacay in la fududeeyo sharciyada lagu macaamilayo qaxootiga sii kordhaya. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in ka badan $1 bilyan oo ay ku bixin doonto kororka qaxootiga sanadkan 2023.